kulan wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba khiyaarta hawada nagala xidhiidha meel kaste oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteennii faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena aan diiradda ku saari doonaa hadduu rabbi idmo magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa saaka degan kadib markii sida la tilmaamay maamulka somalilan ciidamadii ka joogay ay geli waayeen gebi ahaanba magaalada laascaanood taasi oo dadka siyaasadda iyo dhanka milatariga faalleeyaba ay ku tilmaamayaan in ciidamada maamulka somalilan gebi ahaanba aysan aysan u haynin dagaalka ka socda duleedka magaalada laascaanood garaadada ayaa iyaguna waxa ay codsi iyo qayladhaan u direen dowladda federaalk soomaaliya kuwaasi oo ay ku sheegeen in maamul loo sameeyo reer khaatumo iyo in ciidamo laga soo dejiyo magaaladaasi taasi oo ilaa haatan aysan ka jawaabin dowladda federaalk ee soomaaliya dhanka kale ee wasiirada dalka soomaaliya qaarkood ayaa iska casilay sababta ay soo casileen iyo arintaasina waan ku faaqidi doonaa barnaamijkeena daawadayaal hadduu rabbi idmo waxaa barnaamijka igala qaybgalaya saaxiibkay gooni oo inta badan ka faallooda gebi ahaanba xaaladda dalka soomaaliya gooniyow haddaan ku bilowno magaalada laascaanood maxaa ugu dambeeyey fargoda waa mahadsan tahay in magaalada laascaanood saakay ee sidii hore ma ahan dagaalkii faraha badnaana ma jiro xaaladuna way sidii hore ka degan tahay marka magaalada waa jawi degan ay ku jirtaa inkastoo ciidamada is hor fadhiyaan xabado talteelna magaalada laga maqlayo marka qaar laakiin waxaa laleeyahay xaaladu weli 100% ma aha ciidamadana meesha ay isku hor fadhiyaan marka somalilan waxay isku dayday in hadda labadii beri oo lasoo dhaafay in magaalada laascaanood ay qabsato wayna u suurageli weysay ayagoo weliba dhowr mar ciidamadooda soo bixiyey magaalada inay soo geliyaan isku dayeen kadibna dib loogu celiyay deegaanka meesha ay kaga sugan yihiin gooja cadda la yiraahdo ee xerada waxaana halkaas ay weli ku sugan yihiin sidoodii ay ugu sugnaayeen 18 beri ka hor ay weli meeshooda ku xariisan yihiin marka wax isbedel ah iyo wax dagaalka hadda saaka ka jiro oo dheeraada ma jiro inkastoo laga baqay in dagaal dhaco oo weli qarka isku saaran yihiin marka garaadada kasoo jeeda SSC ayaa saaka hadlay waxaana hadlay garaadka guud garaad jaamac wuxuuna sheegay in dowladda federaalk Soomaaliya looga baahan yahay inay maamul u soo magacaawdo SSC kadibna ciidamo ay kasoo dejiso magaalada laascaanood ayaguna amniga ay gacanta la wareegaan maadaama dastuurka Soomaaliya uu qorayo in arintaasi ay sax tahay saasna ay sameyn karaan marka dowladda federaalk Soomaaliya arintaas ayaa looga fadhiyaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Maxamuud oo maqan yahay dalka dibadiisa ay ku maqan yahay wadanka Imaaraadka ayuu ku sugan yahay waxaana loo baahan yahay in sida hadda codsiga u soo jeediyeen garaadada in dowladda federaalk Soomaaliya si degdeg ah uga jawaabto waxa kale oo la sheegayaa in madaxweynaha markuu ku soo laabto Soomaaliya inuu tagi doono gobolka Gado oo ayadana maalmihii la soo dhaafay warkaas ay soo baxayeen marka fargodo waxa u malaysaa in garaadadu hadda ay toos isugu dhiibeen dowladda federaalk Soomaaliya ayagoona sheegay inay kaga baahan yihiin saanad military iyo hub iyo ciidan iyo in dadkii meesha madaxa ka noqon lahaa in dowladdu ay soo magacdo marka waxa isleedahay fargodow dowladdu waxay haysataa nidaam fudud oo waliba ay wax ku soo magacaabi karto ciidamana kaga deji karto maxaa la yiraahdaa magaalada laascaanood waad mahadsan tahay ninka lagu magacaabo gooniyow haddii aan fiirino dowladda dhanka jawaabta laga sugayo ma laga yaabaa inay jawaab degdega ka bixiso ay maamul u samayso mise waxaa jira inay isyar gaabinayso dowladda federaalk Soomaaliya haddii arrintaas ay ka faa'iideysan weyso weliba maamulka ayada inay ku dhawaaqdo loo madax baneeyey ay ku dhawaaqi weyso weliba dad ka soo jeeda deegaanka intay u dhiibta xilalka ay halkaasi uga dhigto madaxweyne ama nin mas-uul uga dhigto kadibna ciidamo ay geyso ay yiraahdaan madaxweynahan anaga aan meesha u magacawnay ayuu ciidamadan ilaalinayaan amnigiisa sugayaan taasi fursadda ugu weyn ee ugu qaalisan weliba maamulka ogol yihiin waaye ra-iisul haddii arrintaas ogol yihiin waa arrin wanaagsan dowladda Soomaaliya u wanaagsan midnimada Soomaaliya u wanaagsan haday dowladda intaas ka faa'iideysan weyso waxaan dhihi lahaa Xasan Maxamuud fashil ayaa ku jirtay meesha isaga wareeg sababtoo jaanis intaas la mid ah waxa wakaalay meeshan maamulna u soo magacaaw ciidamadaadana keen jaanis lama helo maxaa Cabdullaahi Farmaajo waxaas laba daqiiqo ku sameyn lahaa sababtoo gobolka Gado waxa xasuusanaa maxaa Cabdullaahi Farmaajo intuu ciidamo u diray iyo Fahad Yaasin intay ciidamo u direen halkaasna dhibaatada iyo dagaalka ay ka jirtay sida ay ku xaliyeen marka jaanis aad u weyn oo degdeg ah waliba inay kaga faa'iideystaan dowladda federaalk Soomaaliya waaye hadda ka hor waa ogeed meesha la yiraahdo galmudug in dowladda federaalk Soomaaliya gacanta ku dhigto oo qeyr 2 bilood 15 beri joogay isagoo rasaaraha Soomaaliya ah in arrintaas galmudug sida uu xalin lahaa waliba maamul uu kaga sameyn lahaa ugu dambeyntii maamulkii galmudug waa lagu guuleystay ninka qorqoraha meesha la geeyay marka hadii lagu leeyahay kaala meeshan imaw maamulkana la wareeg maxaa la yiraahdaa ciidamana keen dowladda haday yeeli weyso waxa waaye waa Xasan Maxamuud kama faa'iideysan kare Soomaaliland xorra ka dhigo Soomaaliland madax banaanida hasiyo hadii inta sameyn waay Xasan Maxamuud ilaa wada kale oo baran ma jirto arrintan marka maxay u muuqataa hadii qoladan ay sida uga jawaabaan oo talaabo qaadaan ma laga yaabaa maamulka Soomaaliland inay dhahaan wana la soo weerar hadda way dhahayaan wana la soo weerar hadda iyadoo la weerarinay dhahayaan wana la soo weerar Soomaaliland iyadoo Puntland aysan weerarin maxaa la yiraahdaa maxaa Cabdullaahi Farmaajo xilka mar hore ka dego Turkiga isaga sugan soo weerar way dhaheen dowladda federaalk Soomaaliya oo wali aan ciidan u dirin oo la socono ay waxay dhahaan wana soo weerartay
marka intaasoo barnaamij Ethiopia nagala soo weeraray oo galinka shanaad Mustafa Cagjar ciidamadiisa na soo weeraray ayagoo dhar cadan qabana dhowr boqol gaar ay dhaheen marka wax walba waa laga fishaa Somaliland marka awalba way dhahayeen oo la soo weeray dowladana soo weerartay laakiin hadii dowladdu qof madaxweyne maamul goboleed inta meesha u magacaawdo ciidamo fara badan ay si tiraahdo ninkan ay waardiineen asagana meesha madax ka ah haday tiraahdo dowladdu jaanis ay u tahay Somaliland waxa meesha kuma sii dagaalami karto inay isaga baxdo ay ku qasbanaanaysa sababtoo nin adii meesha maamul loo sameeyay war uma yaal mogta ayaga marka Somaliland haday tiraahdo waana la soo weeray ciidamada noo soo galayba waa wax iska caadiga horena waa u dhigi jireen qofka akhrisanaysan ma laha laakiin hadii dowladdu go'aankaas qaadato maamulna meesha ku dhawaaqdo waa guul u soo hitay ummadda Soomaaliyeed SSC-na waxa way guul iyo sharaf ay u tahay maadaama dadkooda shacabka qoraxda ay dhooban yihiin waliba hadda waqti roobaadka lagu jiro hadii waqti roobaad ay aan leed shacabka roob iyo dabeel iyo qabow u dhima lahayn inkastoo hadda naftigeeda qabow kuleelka iyo qoraxda ay aad u dhibayso dadka in ilmaha qaarkood shuban biyood iyo waxyaabo ay ku dhaceen oo la sheegay oo xaaladdu ay halis tahay laakiin waxa la leeyahay in arintaasi fursad weyn u noqon doonta dowladda Soomaaliya iyo RSC ba fargodow aad iyo aad baad u mahadsan tahay gooniyo haddaan u gudubno dhanka iyo koonfurta iyo waliba dowladda dalkaasi Soomaaliya waxa la tilmaamayaa in wasiiro dawladda uu iscasilay sababtoo uu iscasilay xaalad bal nooga shaqeey wasiir dowlaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa iscasilay ninka lagu magacaabo Caananug waana nin xildhibaan ah wuxuuna ka shaqeyn jiray muddadii Xasan Maxamed xilka uu hayay ayuu asaguna ahaa wasiir dowlaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada marka wuxuu sheegay inuu iscasilay warqadda istiqaaladan uu gudbiyay Ra'iisul Xamse Cabdi Barre asagoo muddo fara badan u dacwoonaya ra'iisaha kana dacwoonaya dadkan maxaa la yiraahdaa in sheeg inay dhibaato ay wadaan oo mar walba oo ka dacwoon jiray wuxuuna sheegay in muddo fara badan uu gudbinayo warqad maadaama corruption uu ka jiro wasaaradda mar walbana ay dhacdo arintaasi in maxaa la dhahaa corruption ka jiro wasaaradda la xalin waayo waliba dad sharciyo wato ama dad shaqeysanayo ama dad maxaa la yiraahdaa dowladda ka tirsan wasaaradda u shaqeeyo in la casilay oo xilalka laga qaaday oo si gardaraa loogu dulmiyay waliba wuxuu sheegay in dad sharciyo wato oo alboorka cadda ka socdo iyo kuwa degada ka socdo kulli arrimahaas oo dhanba in macnaha corruption loola dhaqmay xilalkana loola diiday shaqooyinkana laga hor istaaga marka wuxuu sheegay corruption wasaaradda ka jira awgeed inuu asagu xilka iskaga casilay ma fahanti marka taas ayuu sheegayaa ninka la yiraahdo Fargodow in wuuna iscasilay banaanka ayaana taagan oo yiri in mana rabo yiri in magacayga iyo maxaa la dhahaa cirdigayga lagu dhibaateeyo dad shacab Soomaaliyeed taas ayuu madaxweynaha ninka la yiraahdo Caananug wasiir dowlaha uu isku casilay marka yuu ka cabanaya marka ayaa wasiir meesha ka ama qof dumar gabar Fawziya la yiraahdo wasiiradka meesha oo qof dumar ah gabadhaas ayuuna sheegayaa inay corruption ugu badan ay mas'uul ka tahay marka wuxuu leeyahay taasna wax isbedel oo meesha ka muuqdo ma lahan intaasna waan raajicinay ra'iisaha dhowr mar ayaa codsi u gudbiyay waxna ka muusan qaban oo leeyahay marka ra'iisaha dhammaan dalka la rabo arintaas inuu wax ka qabto oo ka qaban waayay marka aniga go'aan ayaan qaato yiri inaan iskaga tago si aan hadhow magacayga iyo sumcadeeda aysan u halaabin Fargodow taas ayuu uga siibtay marka mar walba corruption wasaaradaha iyo meelaha dowladda dhexdeeda uu ka jiraa in qof hadda daba galo isla xisaabtan dhab ah ku sameysana ma jirto ra'iisaha waxa la leeyahay waa nin iska qabow nin aan aad u firfircoon oo macnaha shaqooyinkiisa aan howlkar ah ma aha dowladda hore Maxamed Abdullaahi Farmaajo markuu Xasan Cali Khayre ra'iisaha waxa lagu eedeyn jiray Xasan Cali Khayre in wasiirka asoo shaqadiisa ku jiro oo ra'iisaha u soo galay oo yiraahdo waray maxaa meeshan ka socdo shaqaalihi yaa ka joogo meeqa shaqada soo gashay meeqa saac ay soo galaan wasiirka wasaaradda maxaa kala socdo xagee wax marayaan marka isla xisaabtan dhab ah wasaaradaha inay jirtay oo wasaaradu ay cabsan jireen oo waxyaabo corruption iyo lacag la dhacay aysan jirin oo ra'iisaha 4 saac daba taagan yahay ayadoo la ogeyn wasiirka maaliyadda ka qayliyay ninkii la dhihi jiray Bayle wuxuu yiri ra'iisaha weligay ka shaqo badan ma arkin oo yiri 24 saac waxa laga yaabaa dhahay 6 saacadood marka laga reebo inta kale inuu shaqo 18 saacadood ama 19 saacadood inuu Xasan Cali Khayre shaqeeyo laga yaabaa weliga wuxuu dhahay marka ra'iisul iguma soo gelin yiri xafiiska Xasan Cali Khayre kor teeda kale wuxuu yiri waa wasaaradii wuxuu yiri waa ra'iisul ugu horeeyay markii wasiir oo magacaabayo wasiirka intaan la magacaabin wuxuu leeyahay hantida aad leedahay qaranka intaada adiga aad leedahay gooni u leedahay soo qor wasiir lagu magacaaba marka nin walba waxa la yiraahdaa soo magacaabo maxaa la yiraahdaa lacagtiisa inta uu leeyahay soo sheego ayadoo qoran oo diyaarsan documenti ah soo hal guri aan leeyahay ama laba guri aan leeyahay soo dheh hadhow xisaabtana lagu imaana marka wasaaradda waqtigeeda ka dhamaado marka dowladda hore waxay dhahay isla xisaabtan aad u weyn jiri jirtay waana wuxuu yiri si fudud la isku ma gaadi karin oo dhax marka hadda Xamse Cabdi Barre waxaa inuu nin qabow yahay oo si ku degdegeen dadka isla xisaabtan dhab ah oo uusan jirin arrimahaasna uu ka gaabinayo teeda kale waxa la sheegayaa in dadka wasiirada qaarkood ay ka firfircoon yihiin ninka la yiraahdo Xamse Barre maadaama asagu ra'iisul yahay oo wasiir guud dowladda federaalka Soomaaliya uu yahay waxa la rabay inuu asagu firfircoonida qaato
oo go-aan ka qaato oo dadka waxyaabaha qaldan macnaha madaxweynaha aan la sugin. Hadda waxaa lagu leeyahay Xamse Barre markii dhibaato ay ka jirto ama isqabab soo dhaco madaxweynuhu la sugaya madaxweyne saana waxay yihiin san wax yeelna marka ra'iisul wasaare dhinaca tahay oo dal madax u ah waxaa la rabaa go-aan inaad qaadatid. Xataa waxaa la sheegayay maxaa Cabdullaahi Farmaajo markuu madaxweynaha ahaa ra'iisul wasaaraha inuusan faragelin jirin oo Xamse Cabdi Barre xor u ahaa shaqadiisa oo aan baalgin Xasan Cali Khayre inuu shaqadiisa xor u ahaa waliba waxyaabaha qaar asagoo ogeyn madaxweynaha inuu Xasan Cali Khayre xalin jiray laakiin ninkan nin wax xalin karo wax kala dabooli karo ma baahna leeyahay waa marka dhibaato aad u weyn oo dowladda dhexdeeda ka jirto waaye corruptionkaas iyo waxyaabahaas faraha badanna mar walba waa la sheegaa fargodow marka ilaahay waxaa waaye ummadda hagaajiyo laakiin qof walba uun siduu asaga u dhaqmo iyo sidoo ummadda Soomaaliyeed hantidooda u boobo ay adduunyada u dhowdahay meel dheerna lama gaari doonee dadka shacabka ayaa laga boobin hantidooda si wanaagsan ha lagu shaqeeya dhilaha gooniyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay haddii aan yaro gallo dhanka gobolada galgaduud iyo aan idhaahde gobolka galgaduud iyo weliba galmudug maxaa ugu dambeeyay kooxda al-shabaab iyo dagaaladii dowladda federaalk Soomaaliya u dhaxeeyay horta maalmihii la soo dhaafay waxaa jirta cunaqabateyn la saaray dhulka beelaha ay degan yihiin maxaa la yiraahdaa nimanka la yiraahdo Duduble iyo Mursade dhulka ay degan yihiin in cunaqabateyn la saaro oo dowladda federaalk Soomaaliya cunaqabateyn saartay cabasho aad u weyn oo xildhibaanada ay aad uga dhidhiyaan xildhibaanada ay ka soo jeedo Ceelbur oo beelaha Duduble iyo Mursade aad uga dhidhiyaan arrintaas waliba dhaxda u xirteen sidii arrintaas xilka cunaqabateynta loo qaadi lahaa ayaa waxay leeyihiin waxaan ku guuleysanay in laga qaado cunaqabateyntii oo dadka raashinkii iyo shidaalka loo fasaxo muddo hal bil ah aan loo fasaxin in loo fasaxo ayaan macnaha aan ku guuleysanay marka shabaabkiina dagaal ayaa ku socdo maadaama dagaal uu ku socdo in dadka shacabka laga hor istaago la cunaqabateeyo taasi in wax wanaagsan ma ahayn marka waxay dhaheen beelaha kale lama cunaqabateen sababta Duduble Mursada kaliya loo cunaqabateeyay maxay tahay marka arrintaas doodaas socotay maalmin la soo dhaafay haddana waa loo fasaxay oo go-aan ayaa ka soo baxay dowladda in xildhibaanada warkooduna waa la ajiibay marka dagaal ayaa wax ka socda deegaanada galmudug inteeda badan dagaalkaasna ciidamada dowladda ayaa waxay la galeen shabaabka waxaana la sheegay ilaa 14 shabaab ah inay soo dhiibeen dowladda federaalk Soomaaliya isku soo dhiibeen maadaama dagaal culus uu ku qabsaday deegaanada qaycad iyo galcad beelahan dhan dagaalada oo ka socdo in markaasi ay dagaal ku adkeysan waayeen dowladda federaalk Soomaaliya isku dhiibeen 14 qofood marka waxaa la dhihi karaa in dhankan kale hiiraan ayadana dagaal ayaa ka socda oo dowladda federaalk Soomaaliya u dhaxeeya shabaabka ayagoo isku dayay inay webiga ka baxsadaan shabaabka maalmihii la soo dhaafan isku dayay laakiin ciidamada macawisleyda ayaa hortaagan oo weli xabad ku wada oo shabaabka halkaas waa lagu laayay dhankan jubbooyinka ay u socdaan oo hadda dhankan galguduud dagaalka uu kusii batay go-doonka uu ku batay cunaqabateynta ku badatay magta marka qaab lagu joogi karo oo toosa ma jiro saas darteed marka waxay go-aan ku gaareen in isaga baxsadaan ee dhanka jubbooyinka aadana nolol ka raadsadaan maadaama jubbooyinka isku furan yihiin jilib iyo bu'aal iyo dhankan dhan bay isku furan yihiin ilaa iyo xudur dowladda federaalk Soomaaliya aysan joogin dhulkaas dhul weyn oo hood ah laguna shaqeysan karo laguna noolaan karo uu yahay inay halkaas u wareegsadaan laakiin waxaa la leeyahay in arrintii ayaa saameysay oo cunaqabateyntii dowladda ay ku haysay marka waxay go'aansadeen in intooda badan ay u baxsadaan deegaanadaas teeda kale shabaabka dhexdooda dagaal ayaa ka jira baryahan oo hadda labadii maalin lasoo dhaafay 26 nin ayay iska dileen shabaabka markay isku dayaan ciidamo 20 gaar ama 15 gaar inay baxsadaan markay isku dayaan inta isla markiiba shabaab kale loo soo diray waxaa la leeyahay soo laaya hal news ka fiigan qoryahan ka soo qaada soona laaya markaas dagaal dhexdooda bilaabana markay xabad isku bilaabaan qoladan waxbay leeyeen qoladan waxbay leeyeen saas ayuu dagaalku marka mar walba ku socdaa shabaabka dhexdooda dagaal isku hayaan dowladana dagaal ku haysaa marka hadda shabaabkii kala dhoomanaya baxsad ay waxay u yihiin dhanka jubbooyinka maadaama dagaal fara badan iyo culeys fara badan oo iska jiran dhankaas jubbooyinka oo galmudug hadda nimanka la yiraahdo koonfur galbeed aysan wax dagaal ku haynin nimanka la yiraahdo Jubbaland dagaalkooda xogaa yar qaboobay waxaan u maleysaa inaysan xaaladda sidoo hore ahayn marka waxaan arki doonaa fargodow dagaalada halkaas intaas ayaa ka soo cusbanaatay marka wixii warar oo kale naga soo gaarna wararkan dambe ay ku faahin doonaa haddii Ilaahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay gooni oo inta badan ka faallooda guud ahaanba geeska Afrika daawadayaal barnaamijkan faaqidaadana inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa intaan dib dambe ugu kulmi doono mid kan mid lamada waxaan kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.